سائلka toddobaad wuxuu weydiinayaa lacagaha YouTube-ka laga qaato. YouTube baa la furtaa, dad badan baa share garay iyo subscribe garay la yiraahdaa, kadibna shirkadda YouTube-ku dadka lacag ay siisaa. waxaana lagu siiyaa inta qofka saailkii soo qoray xayeysiis baa boggiisa lagu samaystaa. markastoo dadka bogga ku xiran ay bataan, xayeysiisna isagu ogolaaday in lagu sameeyo. wixii lagu xayeysiiyey bogga isagu uu lahaa, dadka badanna isagu uu keeno ku soo xiray, ba commission iyo percentage laga siinaya. warka nuxurkiisu dadka uu keenay lagu xayeysiiyey baa wax yar oo khidmada lagu siinaya. hadday mas'aladu tahay marka xayeysiintaas lagu siinayaa, waxay ku xiran tahay waxa la xayeysiinaya ma xalaal ba mise waa xaraam. hadduu wuxuu xalaal wada yahay, wixii laga hela waa xalaal, kamana duwana TV-gii wax xayeysiinayay iyo idaacaddii wax xayeysiinaysay iyo website-kii wax xayeysiinayay, waxba kama duwana. ama ninkii lugtaba ku wareegayay ee badeecadda suuqa dadka soo tusayay wareejinayay ee wax lagu siinayay kama duwana. waayo dadkan isaga magaciisa ay soo raaceen, isagaana ugu yeeray oo keenoo meeshan ku xareeyey. waxan in loo sii daayeen isaga idankiisa ay ahayd inuu wax ku qaatana wax curfi oo lagu heshiiye waay. hadduu waxa la xayeysiinaya xaraam wada yahayna, waxa laga helo dhan xaaraan waay. hadday isku jiraanna, wixii xalaala wixii laga helana waa xalaal, wixii xaaraana wixii laga helana waa xaraam. wuxuu la mid yahay dukaanka badeecadda xalaasha iyo xaraamta lagu gadayo. badeecad buu gadaa, raashin buu gadaa, cunno gadaa, cabitaan buu gadaa, sigaarna waa gadaa. qadarka waxa uu gadaa xaraama, laakiin raashin iyo cabitaan la gaday xaraan ku noqon maayaan. wuu ku dambaabayaa qadarka xaraanta uu gaday qadarkeeda. waana masalada culimmadu ay kaga hadlaan qofka xoolihiisu xaraan iyo xalaal isugu jiraan. in qadarkii xaraamtaana xaaraan ka yahay, qadarkii xalaasha ahaana uu xalaal u yahay. qadarka xaaraanta wixii ku aadan ugu dambaabayo. intaa weeye nuxurkeedu. ee adu maxaad xayeysiisaa? waxa boggaaga lagu xayeysiisa xalaalnimadiisa ma iska hubtaa? mas-uuliyaddu qofkii bogga lahaa bay u noqonaysaa.